السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلح ولا لا qisadan ku aaga sheekeynaya ana soo koobaya message wala waan ku qori waayay because aad bay u dheer tahay saas ay tahay in badan kasoo kala tagaya oo inta muhiimka aan ka soo qaadanaya wala macaan waxa dhacday inaan 2011 wiil Soomaaliyeed oo lagu wada ku kala noolahay iska barano internetka Facebook hal sano in walaalnimo hadaya isku naqaanay oo daduna asxaab iska ahayn sanad kadib walaaleynu sheekayso bandhigtay oo sheekaysanay wiilkii sanadii waxaan ka sheekaysanay aadna aanu jeclaa kulli aan xaqiiqada qalbigayga ma kaadli kara oo qofku wuxuu ku muujinayo aad si fahmi kartid qofna xalushiisa kuma jirtid ayaa waxaa dhacday inuu guri soo bandhigtay aan ogolaaday gurkiga sanadkii 2013 ayaan go'aansanay inaan isguursano walaalo maalmo ka hor intaan isguursanin ayaa waxaa dhacday maalmaha kamid ah message inaan Facebook uga qoro aniga gabadha asxaabna isla joognay oo hal building wada deganeen message-ka ayaa walaal qof dumar ah iga soo jawaabtay waan yaabay aniga gabadhi baa isfiirinay waxaan dhacnay waa been maybe gabadhi ayaan taleefankaaga daarun sheegisana si dhacnay oo sidoo kale hadal waan arkay qof dumar tahay isaga isiya baayo oo sheekaysanaa laakiin ana ku diinaya ma jecel aniga bay ugu dhahday dadna ma karihi okay gabadhi sidoo isku baranay farahan ka qaaday sagay waxaa dhacday inuu aad igu waco si badan soo diro waxaa dhacday marka inaan ka qabanin adoo week taleefanka qabanin la hadlin gabadha asxaabta ahna ay wacay wuxuu ku yiri maxaa ku dhacay waxay dhahday qof fatasiisay password-kaaga la socotay xidhiidh la lahayd message-ka adig ku soo dartayna qofkaas oo soo jawaabay sad la aligid bi taleefankaaga qabanin been waanaas qaraban markanahay waxbay dhahaysay waan kaaga hagaajinayaa beenteeda waaye ciyaal suuqada weeyaan maxay waaye naagtii meesha u mismaysay adig gabdhii markuu dhowr shir ku calaalay ayay ugu dhaheen iskala hadal sidii baan ku hadana iskugu soo noqonay adig laba bil kadib waayo guurkeeni baa yimaaday anaka wada hadallo mu haysan isaga sharci weyn anagina baxay noqotay meesha joogo tago familkeygana haaf baa halkaas deganaa waan baxay marka familygiyaan tagay familygii iga soo doontay familygii marka raali kama yahayn laakiin si haddana ma ii muujinin yani inay saas dhan aynu soo rabin waa la ii meheriyay waa la siiyey si qurux badan waa aqal kale marka dhowr iyo 10 cisho marka xagga joogay markii baa la aqalgeeyay waxaa dhacday marka walaalo inaan ka aqalgalay taleefanka ay maalmaha kamid ah iga tagay isaga jaamacad buu aaday jaamacadda marka intuu ku maqnaa ayay message taleefanka gabadha asxaabnahay oo xagga uga tagay ayaan soo wacay anoo la hadlaya ay ka soo wacay ma qabanin message ayaa qofkii soo diray uu leeyahay maxaa ku dhacay marka aan ku dhawl ma joogo taleefanka iska lahaa gabadha baxad gabadhii marka message-deena dib u aqriyay waxaan arkay walaalo marka sheekada naga dhaxaysa hadal badan oo walaal jiroon soo dhici jiray inuu qofkan soo diyaarin jiray waan yaabay darxan dhaay wixii buu wada ixtaagantay maxaa ka hadli kartaa hadar shubaan iska dhahay qofkiina sidii halkii ku baxay kadib ma qaano waxaa dhacday marka walaalahay ana anigu markii waxaan u saday uur qaaday labadii bil markii ii dhamaatay ayaan soo baxay halkii aan ka imaaday ayaan soo laabtay markaan halkii ku soo laabtay waxaan bilaabay inaan shaqo raadiyo guri raadsado maadaama markii hore family-ga la deganaa habarada iyo wadii Afrika ku nooshay shaqo raadsaday guriga waan ku buuxsaday inta sugay maalmo kamid ah aadna aan tabcaan u ahaa xanuunsanay ay soo wacay inuu iga codsaday inaan kala tagno waan la yaabay waxaan weydiiyay marka maana dib kuugu keenay oo dib baa ila tirsanay sida ayaa sheekadan keentay mise adoo dib ku haysta may adigana dib ugu mas'uulana dib ma haysto bas inaan kala tagno ka diyaarba
waan yaabay marka waxaan dhahay haddaan dhib kugu sameyn adigana dhib ku haysanin filimkaan fahmay maaha filimkaan dee kolley waxaad soo go-aansatay dabcaaga ku jira ayaan dhahay naxin kaa celin kara malahan go-aankayaana maahan walaal mana kala tegin laakiinse wuu aamusay markaas uu laba bilan lahaa dib u isoo wicin muddo 5 bilood ah anoo 7 bilo uur ah leh ayuu maalin aad ii wacay mesajyo badan isoo diray gabdhaha asxaabnaha la socday maana la hadlin dad baa la socdaa baan ku idhi ma kula hadli maxaa dhacday marka inuu week sidii ugu wacayay week kadib baan ka qabtay maxaad rabtaa baan ku idhi walaalo maxay ku dhahay walaalay qaladka shilka galaan kasoo noqday qof fiican baad ahayd raali noqo iska caafi ilmahan aabihiisa nahay ilmaha wada korsano waan soo noqday anaga martaba kuma xumeynay ayaan dhahay maqaldamo kule waa ilahay laakiin si qalad weyn baad iga gashay haddana dhibkii keenay aad ii sheegin laakiin haddana saas ay chance baan ku siinaya hadda chancekaaga ka faa'iidaysata walaalay muddo adi sanadku dhawaad ah oo ilaa intaa ka dhalay ilmaha dhowr bil gaadhay qof wanaagsan qalbi wanaagsan yani xumaan intaas kuma arkin si fiican u xidhiidhinayay wuxuuna awoodan siinay maasha allah oo ahaa maalmaha kamid ah ayuu markaa waan baxayaa magaalada joogaan ka tagaya waxaan aadayaa walaashii oo dhalaysay hooyadii baan kaxaynayaa waan u geynayaa wuu baxay wuu tagay halkii buu tagay xaafad buu jiifay xaafadii markay soo escape intuu iga soo wacay ila hadlaya ayaa qof gabadh ayaa usoo gashay aniga ayuu muddo saaray markii sugintoo dhan muddo oo qabtay labada qof waxay ka wada hadlayaan ma maqli karti waan yaa marka muxuu qarinayaa baa israa cabar markaan ku jiray ayaan iska jiray escape-gii maxaa dhacday marka kadib markuu soo noqdeen gabadh walaashii isaga weynay soo wacda maalin ku dhahdo magaaladii ay walaashii deganeed naag joogto single mother oo laba ilmood haysta ayaa soo wacda ninkan oo malayn wax ka dhaxeeyaan walaal isaga qof weyn ku yidhaa walaa qofka wax ka dhaxeeyana qof kale tabsaga taala go-aansada qofna qof weyn kama u xilin karo ilmo yaran dhalin maahan waan aamusan weydiinay isaga waa inuu xaafadda qabsanaya ogaheeda hadalku weydiiyo sidii baan ku aamusay aniga ayaa iga codsaday marka inaan ilmaha soo tuso oo arko maadaama aan arkay isaga oo u dhashay waan baxay marka tigid buu noo soo jaray bila ah waan baxay halku joogay baan aaday maalin ayaa intaan haddana xagga joognay ayaa taleefankeyga systemka xaggaas waxbaa iga wareeray gabadha asxaabna marka igu tiraahdo walaal xagee kaa soo taleefankiisa aan furantay kaasagala soo halkaasaan haystaa gabadhii ayaa xasho isagoo ku maqan jaamacadda wacday markuu yimaaday guriga ugu dhahay gabadh baa kusoo wacday waxoo isagana iska seexday u daalanaa gabadhii aniga wacanaya taleefankii meel la fadhiya ayaa gabadhi aad soo wacday faybarka ma qabanin waayo waxaan isdhahay qofka waxba ka qabanin ma sii shakiyin asxaab iska noqon karaan qaraabay noqon karaan qofku wuxuu yahay guri uma haynin markaan walaal dhowr jeer ka qabanay message soo dirtay leedahay maxaa kugu dhacay ayaantan laguma hayo waa lagu waayey waa una ayaamana naga joogniba maxaa kugu dhacay leedahay walaal qofka taleefanka lahaa ma joogan ku yidhi wardaa anaa kugu sheegaya saaq soo wacdoona adigu maxaa tahay dhahday waxaan ku dhahay aniga xaaskiisaanahay xaas maxaa ii soo qortay waxaan ku dhahay walaal wax dhibada aniga qabtaa ma ii dhahda walaalo raali noqo khalid ii fahmin si wanaagsan baad marka dambe ila hadashay ayaan ku dhahay walaalo marka maca salaama masajyada marka gabadha iskula hadal ku qorto wixii dhan iska dhaliiday markaas sidii qof si wanaagsan kula hadlay waxbaas qalada u qaadanay waxay samaysay marka inay dhinaca Facebook soo wareegto Facebookna taleefankan aan hayayo openka ahaa ka furaa dhinaca ka soo wareegtay message soo qortay dhawriyaha naagta sonaagta waa furay dhahdo ma aha xitaa taleefanka qabanayso waan furay message fiican ku dhaw la dhana haysta kan hadii lagu shaqaysan jiray waan furay lama furan wala qabaa adun baan been lagu sheegay ma ii jawaabin marka anigana waan caayay markii waan aflagaday bas waan xanaaqay messagedeedii ayaa waxaan bilaabay inaan gadaal u raaco walaal waxaan waayay hal message kula hadlo ayadan baa message soo qorta ayadan baa sawiro soo dirtay
إن هدنا waxaa dhahay maybe inuu dhaliilay message kula hadlay hadana hadalkii waan ka dhex fahmay way hadal socday oo yani laba qof ku sheegaysanaysay message-dii ma dhaliilin waan iska dhaafay telefonkiisana waan geeyay laba cisho kadib way maalin weydiiyay waraha qofkaas maxaad u aflagaadaysay waxaan ku dhigay naagta waxay ii sheegtay inaad naaga ku shukaansatid iyo ayadaba naagta waan furay walaal ilaahay adduunka keenay ma qarin adigana ma qarin kartid waxba ay qarin ma kulaada warqadaan geysay si fudud iyo dhib la'aan naagaha iskaga shukaanso anigoo aad iyo aad eraygaas marka gabadha ugu raahday ay maskaxdeeda u dhimatay damage weyn baa soo gaaray way qof dhan oo la nooshahay oo awlaadiisa haysid guriga degan tahay noloshiisa ka mid tahay oo ku dhahay maba qalbiga qofku shukaansado ragga afar bilood baneeyay laakiin xushmad iyo wanaag buu ku shukaansan karaa buu guursan karaa anagana xushmad iyo wanaag baan ka mudanahay waan yaabay arrin qaadan waay maskaxdayda weynaatay noqotay anigii baa isla hadlay oo isku wareerayba marka waxaan ku dhaw aniga iska kayfa sax ana fudud ana ka baxay ma igu yiraahday wuu diidaaday maxaa la dhihi jiray bishii baa waxay kaga badatay sulaaqa wallahi 10 sano hadda kadib soo socota boqol jeer baan waxaan ku tashaday inaan tigid ka bedesho laakiin haddana aabihii ilmaha isaga yaray xaramku maqnaa waxaan siraaday iska sug in kula yaabin dadka kale ayaga dartood u dhamaysa bisha sidii baan bisha ku dhamaystay anoo aad u wareersan maskaxdayda erayga ka weynaaday oo isagii waraaqadiisii diiday ayaan iska soo baxay halkii aan ka yimid baan kusoo laabtay walaalo marka halkan imaaday dhowr jeer ayaan weydiiyay haddana anigii marka walaalo maragii maskaxdayda waxyaabihii hore baan dib soo celiyay anigii baa inaan xidho bilaabay asxaabka goo dariska goo gurigaas ku soo xidho shaqan ka imaan gurigaas isku soo xidho ilmeel baan haystaa qof kale wixii la share gareeyo malahan family ma la share gareeyo isaga waa kan يعني waxay ahaa maskaxdaydan ka shaqaysanay aniga xanuun dib igu noqotay saasay taadana salaadaha badan baan tukanayay ilaa baan bari jiray salaad kasta tukado ilaa qalbigayga ii dhowro qofkan shalay Allah ayaa qalbiga bini'aadamka maamulo soo salaad kasta tukado ilaahay baan bari jiray quraanka habeenii maalin akhrisan jiray in qofkan qalbigayga ka masaxo يعني jacaylkan badan iyo wanaaggan badan ee aniga u hayay isagu ii baxaynin inaanan naftayda ku waayin waxaa dhacday marka walaalo markaan anigii xidhxidhay isla hadlay noloshii koob ugu soo noqotay ayaa waxaan go'aansaday inaan baxo oon aado Afrika iyo hooyaday iyo ilmaha naga joogeen tigid baan goostay 2 bil ah waan tagay Afrikaan tagay poliskii badnaa wallaahi markaan family u tagay way kala yaraaday way maskaxdayda markaas kelida aan meesha ku ahay ayaan isla hadlayay laakiin marka dadaan shaqaysto dhexgalo baan helay waxay la yaraada hadalka badnaa maskaxdayda igu soo celcelin jirtay waxyaabaha xumaanta ay igu sameeyay waxaa dhacday sulaaqa inaan arkaa markaan joogo oo bilaabo xiriir badan uu dhaho walaashay haddaan ku jeclay maanta aan ku jeclaaday aniga dhiban hadir soo laabo tigidka bedelo kaalkan joogan guriga gareynaya soo baxa waxaan ku dhawaaqay tigid ma bedeli karo I'm sorry ku dhawaaqay jiro galaaliyay labadan bil hooyada waqti hore iyo reerkan ugu dambeysay ayaan rabaa inaan la qaato tigid ma bedelayaa habta inaan dhamaysto hay'ad iska soo dhamaysto laakiin xagga soo maro meesha ku laabanin taani ma dhici karin waayo ay tahay guriga ka soo tagay alaabaan ka soo tagay shaqaan ka soo tagay soo kuma soo bixin ba inaan saas ugu gooyo meeshan ka imaaday markaan ku noqo qasab ay ahayd marka waan ka wada hadlaynaa baan ku dhorta alaabta halkan ka imid ku noqday oo yaa walaal inta la joogay go'aansatay inaan ilmaha uga tago waan soo bandhigay isaga waxaan ku dhahay ilmaha ka soo tagaya uu igu qayliyay uu dhibsaday uu dhigay telefoonka hadana uu soo celiyay hadana uu bariyay fiiri soo celiyay I will try my best ayaan raadiyay adii waxay hadalku ugu daalinay hooyana way isku dhajisay marka waxaan siraahday in hooyo oo ka tagay ilmaha waayo nin dawla cuskada ma laha adoo ilmihi u ahayo wanaajinayay waxa sameynayay haddana hooyo haddana ugu dhacayo shalay wada diidanaa ilmihiina isku soo raro oo ftada kala ama wixiisii uu risiimisayo hadda hooyadii kaligeed awal ilaahay hadii sabarar karan haddana isaga dartiya u gooyni
waayo hooyo meel kasta lagama helo laakiin in meel kasta waa laga helaa. hooyo go'aansada marka ilmihiina nooga soo tago isagana aad u dhibsaday wuu igu gooyey arrintii darteed. adiga waan kusoo baxay waan soo laabtay anoo kaligay ah halkii aan ka yimid waan kusoo laabtay. markaan soo laabtay marka ayuu haddana dib iila soo xiriiray. waxaan ku yidhi walaalo processkaaga awalba kuu socday ha kuu socdo. halkan markaad timaadid ilmahaagana anaa kuu doonaya ilmahanada dhalay. hooyo waxaan dhib ahayn baadayd kama faa'iidayso maadaama ilma yareeyahay laakiin saas ay tahay haddana waa ilmi ugu horreeyay iyuu noqoto ha iska haysato ku qanacdo. haayuu dhahay salaaqo inkasta oo waqtigan u qabtay uun sugi jirinoo haddana uun hadal bilaabi jiray ilmi maxaad oga timid iyo maanta dhan muran taaganahay laakiin haddana isku day jirin caadi iska dhigo. waxaan dhacday maalmo kamid ah anuu hurdo oo waqti hurdo saa uga soo kacay dhowr hore inuu soo waco saaxadan bax tigid baan ku jiray hore ilmihii wax xujo unbaan u fahmay waan fahmi waay marka waxaad ka wadaa qandho waan qoslo waan yaabay. muxuu dhahay doon ma dooni karaan ku idhaahday sariir korkeed baa ma jeebaa ilmahan dooni maxay tahay waqtigan. marka waxaan ku idhi walaalo saan kuu sheegay processkaaga ku socdo ima wada inta aftadaadana ku doonaya ilmaha ma doonaysa hadda ma dooni kartid ma dooni karaan dhahay baay buu igu yiri jira taleefanka iska baxa 2 cisho kadib ayaa interview baan u qabanay interview baan qabtay ayaan message u qorayso dhahay paperkiisa waxaan arkay walaalo sawir naag iyo isaga isku dhajiyay soo saaray paperka waan yaabay message-kii baan qoray waxaan ku yiraahday interview-gaaga waqtigaas ku balansan yahay iska cancel buu igu soo qoray baa waxaas ka dhaq iska ilo cancel sabab kusoo life cancel meestaan baan guursaday life aan ka baxay marbinan meel aado aan ka joogaya iska cancel buu igu dhahay. ayaan ku yiri marka waan ka iska soo baxay wiilkii waan ku laabtay Soomaaliya wax laga xarareeyay waxaan ku yiri walaalo process iska cancel maxaa rabbi ugu yidhaahdo walaalsan oo cancel shaydaanka iskanaara ma cancel ahaye wax yarun baa jiro iska baabiyo waxaase. marka go-aan baan aniga qaatay waxaan ku dhahay walaalo mayaan dhahay processkan dhowr jeer waana isku tiray gareeyay mana ku fududaanay haddana kuma fududaanayaan dhahay waa go-aan aan qaatay lafteerada almost inaan cancel. wiilkii ayaa ugu dhahay chance inta ku siiyey hadii waxaad kugu daalnaa baay baan cancelay processkii isagana sidaba ku kala aamusnay muddo 2 bil ah markaas sidaba ku kala aamusnay ayaan wacay dad waalidkii ah waxaad u joogay ilman adeer ay ah qayb qaraabanahay waxaan dhahay ninkaas waxba ay weydiinina meher ay weydiinina ilmo biilka ay weydiina oo dib yimaade soo ku yimaade waxba ay weydiina kali ah waraaqadeeda soo qaada saxanta ay ku sameeyeen numberkiisii baan siiyey iyo numberka aabihii odayaashii wala waxay hay'adaha waan keenina laakiin dhowr jeer balami ka baxeen way googooyeen adilaaس marka dambe oday baad ugu qayliyay oo dhahay ciyal suuqnimada askaraafa keena warqada laasim ilaahay baa iga soo qaaday ilaahay inuu iga soo fudeeyay laakiin aad baan u dhibtooday markaan arrintaas ugu dhacday oo ayr ninkii dhanaa u maqnaa elifkiis ku jirshaa intaas xumaan igu sameeyay ugu soo dulqaatay waxaa dhici jirta wallahi sometimes abayna qof sensitive noqdo emotional ah anoo shaqada ku jiro ilinta iska soo kaydhaafto gabar aan asxaabnahay oo gabadhaas basta wax la wadaagi jiray markaan waco inaan hadli waayo ooyo ayadana igu dhahdo ooyo baayo naqska ka baxaya been relief dareemi soo oohinta isku celinin gabadhaas ayaan aaday maalin 3 cisho waan fasax haystay shaqadayda oo shaqada ku rafaaday intaan shaqaynayay waan baxay gabadhaasaan aaday israaxi xoogaa 3 bir madax ku soo dejiso taleefankiisa ayaa baa message isaga naagta laga soo duubay aflaga deenayo waxaan ku idhaahday baa gabar Soomaaliyeed baa tay kuleeyada reer dumiyay dhexda ka soo galay laakiin tan sastaanigi si aflaga deento balaadiga ha ku hayaan ku idhaahday nafsugu ku qabanin oo bari adiga dabada laga soo laabay waan iska dhaafay taleefankooda balog iska galay alxamdulillah waraqadii in ilaahay igu soo fudeeyay wala ay keenay abaayo waxaa dhacday marka in naagtii oo guursaday ay
wadankii isaga jooga laga xiriiriyey walaalihiisa ay ugu dhexeen wadan kale loo xiriiriyey oo dariskooda ah dan uu bilaabay inuu anigii lasoo xiriiro marka kama wargurin waayo waan kala tagnay waqtiga waan kala baxnay kama warguri jirin waxaan u daayay taleefankiisa blog waan gelin karay waan goyn karay familiga dhan baan goyn karay maxaas dhahay maadaama adiga lifekeeginaysaa ku dhammaaday gabadha yarta waxba reerkooda ayaa bixida ka jirin waxaan ku daabasaan wadanaynayay laakiin waxaa bilaabatay inuu maxaa la dhihi jiray uu bilaabo malagu guursaday malagu kaneeyay dhowr casho markuu weydiiyay haduu walaal dhageyso sumada guursanaa 3 booso kaama bananaa 3 kale hadana ku buuxi waan ku dhahday lifeka bilka soo darag laakiin aan lifeka ka dhamo waxay kaama gelin hadaan guursado hadaan guursanin waxa adeed u shaqaalayn saari akhlaaq mida kale inta iska dhaftay ilmaha inaga dhaxeeyo bas ilmaha inaga dhaxeeyo hayo dhahay wuxuu bilaabay markii inuu message badan soo qoro inuu hadana dib u soo calaacalo waa akhriya message-ka baan kama jawaabo wuu soo wixii kama qabto markaan ka qabto arrimaha galo waan iska jeclaa taleefankiisa waa kan xanaaqay anigu shaqayska galay markaas ku sameeyay muddo bil ku waday ay walaashi waxay uu spam fariimo wuxuu dhahay naagteedii Facebook raadsi way la hadashay maxaa la dhihi jiray waan kala dhamaanayada lafteega ilmaha subanaga dhaxay lafteega may ka baxdo may kanayso walaashi ayaa message soo qortay waan la hadlay soo caadaado waxay baaysaas ku leeyahay maxaa jira ana baanagtis ma baqanan ku Facebook inuu ku jirto inuu ku jiro nooca ay waxay tahay magaranayaan dhahay waana been u soo been fariimay anina agtiisa iyo naag Soomaaliyeed midna Facebook kama wada hadlin xumaana kuma wada hadlin inaan naagsi isaga time ku bixiyana wallahi aan nolosheeda waqti ku bixiyo ayaa iiga wanaagsan kana jecelahan dhahay waa inaan raadiyo xataa iigu jirto ma walaaba marka sulaqa waan u sheegay gabadhi walaashay waxaan ku idhaahday walaalo saas buu sameeyaa marka aan message-kiisa ma ka jawaabo waan akhriyaa waan arkaa inaan akhriyo koolkiisa kama jawaabo haddaan ka qabto aad iigu soo celceliyana hadda ilmaha ay weydiiyana waan caadi walaalnimo wanaag baan la hadlaa haddii kale taan arkay in sheekooyinka la galeen waan iska jira koolkiisa aan baxayo ku jiro midna dhehen baan gooyaa markaan ku walaal halkan ka qararsan ma ahana wax dhib iyo wax naagtiisa ama arkin baan ku idhaahday waan hadalka halka ka yimaaday hadeeraan ku dhisaa taleefan bas kale saga soo wacda waxashada hayga daayo masajada hayga daayo naagtiisa ku eekaado sheegayo ilmaha yar dartii baan awood looga qabanay hadeer ilmahana waxba soo xiriirin idinka waxba soo xiriirin ammaan saas ku siino dad Soomaaliyeed baan nahay sharafteena kala waayeen sidii baan walaal hadir reerkoodi xataa isaga because maalinka erey gabadha dhahday waxaan isdhahay ninkan uga badaysiiba inta ku xubin karo ku xumeeyay inta ku dhib karo ku dhibay inta ooy kartay silci kartay bii kartay waa soo baaday yani ma nolosha aad nooshahay dad shaqaysa ilmihiisa istii u sabiilayso ayuu ka xun yahay ba wallahi niyadeyda gashay maalinkaas oo dhasho noloshaada dhibsanaya kan diinka uu ilaahay nafta ku hayo uu soo haduu ku hayn lahaa ka qaaday lahaaba waxaan markaas la qeyn hadalku ugu daalina walaal qasadayda saas bay ku dhamaatay xanuun aad u tiro badan oo muddo 4 sano ayaan ku jiray ilaahayna wuu iga dulqaaday alxamdulillah wallahi maalinka maanta يعني عافمات كان درين محايو لاقي بقرك أنبا إسي الحمد لله الشكر يعني قفك إراعين يعني صبني والين ونفتي دواين إلهي يقر دمي وناك أيان الحمد لله الشكر السنة لكن ولا لا يعني محن كتر دارمي يعني كبره سومالي دا غير دكين دمينية أم الله هي قفكم كما قيمة بنا كما قرح بنا يعني كما وناك بنا marka inay reer saas aaduminin waayo qofka xataa hada jeclaat walaal aniga igu guurso reerkaagana hayso laakiin in aniga intay qaadato reerkayga dumiso hadana leysii aflagadeeyo gabar Soomaaliyeed aad baan uga xumaaday nuur hinaayad barina ku waaraysan wanaajin inaan la wanaajinaynin gabdhaha Soomaaliyeed horta midaas baan uga dardaarmaya in iska dhaafaan xumaatada gabadh walaasheeda kale ay ka galayso waan nabsi mana daaha nabsiga waayadan dambe وهلا قف قصته وقالوا الدنيا آخر بالله بكم مرنية إن تقلتها لمن كانوا حاضر دار ما يقف قوات شعلان كرتا
waadna nici kartaa ugaa dhamaan kara jacaylku laakiin inaad gabadh walaasha oo kaleeta qofna walaashina xumeeya ma uu rabo inaad xumaynin niyada ka dilin qalbiga ka dilin waxaa ka wanaagsan kuley ani kana jeclahay qof kastana aan maninooga wanaagsan inuu ku dhaho qofka walaalo uu iga dhamaaday jacaylkii walaalnimii weji fiican noo soo hayna aan kala dhammaano laakiin inta qofka damage gaadhsiin lahaa uu nafsadiisa ku waayahay ciishoonaya habeen iyo maalin uu yahayo uu ka fikirahaya maxaasaan lagugu galayaa waxaa ka wanaagsan maan kuley u malaynayaa ani in wanaag iyo sharaf lagu kala tago kuley ani xanuunkii dhibkan soo maray ilaahay ayaa og laakiin ilaahay wuu iga dulqaaday alxamdu alshukri nolosha nololka fiican baan ilaahay ka rajeynaya insha allah qisadeydina saas bay walaal kusoo dhamaatay idinkana ilaahay iigu barya inuu ilaahay qofka wanaagsan oo sharfa qiimahayga wanaagayga garanaya iyo soomaalinimadaba ilaahay inuu siiyo ayagana waan cafiyey dar ilaahay baan ku cafiyey labadoodaba waayo qof ilaahay looga tagay wax ka wanaagsan ma laha adduunyadan alla dartii ayaan ooga tagay cafiya masaamax bay leeyihiin bilaadanka qalad bay kala galaan markaas walaal walaal macaan hadalkan kugu badiyey raali noqo walaal message waa qasay aad u dheer maan ku qori karin aad bay igu dheeraatay soomaaliga markii la qorayna aad buu dheeryahay marka cafan macaan adigana ka raali gelinaya insha allah qisadeedii oo dhammaystiran waa kaas walaalo assalaamu calaykum ayadan baa sawiro usoo dirtay haddana waxaa isdhahay maybe inuu dhaliilay masajada kula hadlay haddana hadalkii waan ka dhex fahmi waaya hadal socday oo yani laba qof ku sheegaysanaysay masajadii ma dhaliidin waan iska dhaafay taleefankiisina waan ogeyay laba cisho kadib ayuu maalin i weydiiyey warahay qofkaas maxaad u aflagaadaysay waxaan ku dhihi naagta waxay ii sheegtay inaad naaga ku shukaansatid iyo ayadaba naagta waan furay walaal ilaahay adduunka keenay ma qarin adigana ma qarin kartid waxba qarin ma ku lahayd warqadidan leysay si fudud iyo dhib la-aan naagaha iskaga shukaanso anigoo aad iyo aad ereygaas markay gabadha igu rahda ay maskaxdeeda u dhimatay damage weyn baa soo gaadhay waayo qof dhan ood la nooshahay ood awlaadiisii haysid gurle degan tahay noloshiisa ka mid tahay waa ku dhahay maba qalbiba qofku shukaansado uu ragga afar bilaa baneeyey laakiin xushmad iyo wanaag buu ku shukaansan karaa buu guursan karaa anagana xushmad iyo wanaag baan ka mudanahay waan yaabay arrinaa qaadan waaye maskaxdeed ka weynaatay noqotay anigii baa isla hadlay oo isku wareerayba marka waxaan ku yidhi walaal aniga iska kayfa sax anaa fudud ana kaa baxay mayuu igu yidhaahday wuu idiidaaday maxaa la dhihi jiray bishii baa waxay kaga badatay sulaaqa wallaahi 10 sano hadda kadib soo socota boqol jeer baa waxaan ku tashaday inaan tigid ka bedesho laakiin haddana aabihii iyo ilmaha isaga yaraya xaramka maqnaa waxaan isiraaday iska sug ayna kula yaabin dadka kale ayaga dartood u dhamaysa bisha sidii baan bisha ku dhamaystay anoo aad u wareersan maskaxdayda ereyga ka weynaaday oo isagii waraaqadiisii diiday ayaan iska soo baxay halkaan ka yimid baan kusoo laaftay walaalo marka halkan imaaday dhowr jeer ayaan weydiiyey haddana anigii marka walaala maragii maskaxdiga waxyaabihii hore baan dib soo celiyey anigii ba inaan xidho bilaabay asxaabka go-o dariska go-o gurigaas kusoo xidho shaqan ka imaan gurigaas isku soo xidho ilmeel baan haystaa qof kalena wixii la sheergareeyo malahan family ma la sheergareeyo isaga waa kan يعني waxay ahaa maskaxdaydan ka shaqaysanay aniga xanuun dib igu noqotay saasay taadana salaadaha badan baan tukanayay ilaa baan bari jiray salaad kastaan tukado ilaa qalbigayga ii dhowro qofkaan shalay alla ayaa qalbiga bini'aadanka maamulo soo salaad kastaan tukado ilaahay baan bari jiray quraankan habeenii maalin akhrisan jiray in qofkaan qalbigayga ka masaxo يعني jacaylkan badan iyo wanaaggan badan ee aniga u hayay isagu ii baxaynin inaanan naftayda ku waayin waxaa dhacday marka walaalo markaan anigii xidhxidhay isla hadlay noloshii koob ugu soo noqotay ayaa waxaan go'aansaday inaan baxo oon aado Afrika iyo hooyaday iyo ilmaha naga joogeen tigid baan goostay 2 bil ah waan tagay Afrikaan tagay waliskii badnaa wallaahi markaan family u tagay way kala yaraaday waayo maskaxdayda markaas kelida aan meesha ku ahay ayaan isula hadlayay laakiin markaa dadaan la sheekaysto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
salaqa walaalo qisadeedan ku aaga sheekeynaya anoo soo koobaya waa message-na walaalo waan ku qori waayey because aad bay u dheer tahay saas ay tahay anoo in badan kasoo kala tegaya oo inta muhiimka un kasoo qaadanaya walaal macaane waxaa dhacday inaan 2011 wiil Soomaaliyeed oo laba wadan ku kala noolahay aan iska barano internetka Facebook hal sano inaan walaalnimo caadi ah isku naqaanay oo dad un asxaab iska ahayn sanad kadib walaalo inuu sheekayso bandhigtay oo sheekaysanay wiilkii sanadii wax yar ka sheekaysanaynay aadna aan u jeclaa kulli aan xaqiiqada qalbigayga ma kaadli kara oo qofku wuxuu ku muujinayo aad uma sii fahmi kartid qofna xalushiisa kuma jirtid ayaa waxaa dhacday inuu guri soo bandhigtay aan ogolaaday gurkiga sanadkii 2013 ayaan go'aansanay inaan isguursano walaalo maalmo ka hor intaan isguursanin ayaa waxaa dhacday maalmaha kamid ah message inaan Facebook uga qoro aniga gabadha asxaabna isla joognay oo hal building wada deganeen message-ka ayaa walaalo qof dumar ah iga soo jawaabtay waan yaabay aniga gabadhi baa isfiirinay waxaan dhacnay waa been maybe gabadhi ayaan taleefankaaga daarun sheegisana sii dhacnay waa sidii waan kula hadalay waan arkay qof dumar tahay isaga isiiya baayo waan sheekaysanaa laakiin ana ku daynaya ma jecel aniga bay ugu dhahday dana ma kalihi okay gabadhi sidii waan isku baranay farahan ka qaaday isagii waxaa dhacday inuu aadi wuxuu si badan isoo diro waxaa dhacday marka inaan ka qabanin week taleefanka qabanin la hadlin gabadha asxaabta ahayna ay wacay wuxuu ku yidhi maxaa ku dhacay waxay dhahday qof siisay password-kaaga la socotay xidhiir la lahayd message-ka adig kuu soo dartayna qofkaas uga soo jawaabay sad la aligid bay taleefankaaga qabanin been waa naaqas qaraboon meelkanahay waxbay dhahaysay waan kaaga hagaajinayaa beenteeda waaye ciyaal suuqad weeyaan maxay waaye naagtiiba meesha u mismaysay adig gabdhii markuu dhowr jeer ku calaacalay ayay ugu dhaheen iskala hadal sidii baan ku hadana iskugu soo noqonay adig 2 bil kadib waayo guurkeeni baa yimaaday ana ka wada hadallo mu haysan isaga sharci weyn anagina baxay noqotay meesha joogo tago familkeygana haaf baa halkaas deganaa waan baxay marka familygii aan tagay familygii iga soo doontay familygii marka raali kama yahayn laakiin si haddana ma ii muujinin yani inay saas dhan ayna u soo rabin waa la ii meheriyey waa la siiyey si qurux badan waan aqal galay marka 12 cisho marka xagga joogay markii bale aqal galay waxaa dhacday marka walaalo inaan marka aqal galay taleefanka ay maalmaasta oo dhex galo baan helay waxaa iga yaraaday hadalka banaan maskaxdayda igu soo celcelin jirtay waxyaabaha xumaanta ee lagu sameeyay waxaa dhacday sulaqa inaan arkaa markaan joogo oo bilaabay xiriir badan uu dhaho walaasha haddaan ku jeclin maanta aan ku jeclaaday aniga dhiban hadir soo laabo tigidhka bedelo kaale halkaan joogan guri idinka garaynaya soo baxa waxaan ku yidhi walaal tigidh ma bedeli karo I'm sorry ku dhowr jiro buu celceliyay 2 bil hooyadii waqti hore iyo reerkan ugu dambeysay ayaan rabaa inaan la qaato tigidh ma bedelayaa haabta inaan dhammaysto hay'adda iska soo dhamayso laakiin xagga soo maro oo meesha ku laabanin taani ma dhici karin waayo ay tahay gurigan ka soo tagay alaabaan ka soo tagay shaqaan ka soo tagay soo kuma soo bixin ba inaan saas ugu gooyo meeshan ka imaaday marka inaan ku noqo qasab ay ahayd marka waan ka wada hadlaynaa baan ku horta alaabta halkaan ka imid ku noqdo hooyo ayaa walaal inta la joogay go'aansatay inaan ilmaha uga tago waan soo bandhigay isaga waxaan ku yidhi ilmaha ka soo tagayaa wuu igu qayliyey wuu dhibsaday wuu dhigay taleefanka haddana wuu soo celiyay haddana wuu baryay wuxuu yidhi soo celi I will try my best ayaan raacay waxay hadalka ugu daalinay hooyana way isku dhajisay marka waxaan si dhahday in hooyo uga tag ilmaha waayo nin dabal cuskada ma laha adoo ilmihii u ahayo wanaajinayay waxa sameynayay haddana hooyo haddana ugu dhacayo shalay wada diidanaa ilmihiina isku soo raro oo ftada kala ama wixiisii uu risiimisahayo hadda hooyadii keligeed awal ilaahay hadii barar ka dhan haddana isaga dartiya u gooyni
waayo hooyo meel kasta lagama helo laakiin in meel kasta waa laga helaa. hooyo go'aansada marka ilmihiina nooga soo tago isagana aad u dhibsaday igu gooyay arrintii darteed. adiga waan kusoo baxay waan soo laabtay anoo kaligeeya halkii aan ka yimid waan kusoo laabtay. markaan soo laabtay marka ayuu haddana dib iila soo xiriiray. waxaan ku yidhi walaalo processkaaga awalba kuu socday ha kuu socdo. halkan markaad timaadid ilmahaagana anaa kuu doonaya ilmahanada dhalay. hooyo waxaan dhib ahayn baadaayid kama faa'iidayso maadaama ilmo yar yahay. laakiin saas ay tahay haddana waa ilmo ugu horreeyay iyuu noqoto ha iska haysato ku qanacdo. haye ibraahim salaaqo inkasta oo waqtigan u qabtay uun sugi jirinoo haddana uun hadal bilaabi jiray oo ilmihi maxaad oga timid iyo maanta dhan muran taaganahay. laakiin haddana isku day jirin caadi iska dhigo. waxaan dhacday maalmo kamid ah anoo hurdo oo waqti hurdo saa uga soo kacay dhowr hore inuu soo waco. saaxadan bax tigid baan ku jiray hore ilmihii wax xujo unbaan u fahmay. waan fahmi waay marka waxaad ka wadaa qandho waan qoslo waan yaabay. muxuu dhahay doon ma dooni karaan ku idhaahday sariir korkeed baa ma jeebaa ilmahan dooni maxay tahay waqtigan. marka waxaan ku ihi walaalo saan kuu sheegay processkaaga ku socdo ima wada inta aftadaadana ku doonaya ilmaha ma dooni. halkii buu tagay xaafad buu jiifay xaafadii markay soo escape intuu iga soo wacay ee la hadlaya ayaa qof gabadh ayaa usoo gashay. aniga ayuu muddo saaray marka isugintoo dhow muddo oo qabtay labada qof waxay ka wada hadlayaan ma maqli karti waan yaa marka muxuu qarinayaaba israa. cabar markaan ku jiray ayaan iska jiray escape-gii. maxaa dhacday marka kadib markuu soo noqdeen gabadh walaashii si ka weyn ay soo wacday maalin igu dhahdo magaaladii ay walaashii deganeed naag joogto single mother oo laba ilmood haysta ayaa soo wacda ninkan oo umaleyn wax ka dhexeeyaan. walaa isaga qof weyn aan ku idhaa walaa qofkii wax ka dhexeeyana qof kale tabisaga taala go-aansada qofna qof weyn kama xilin karo. ilmo yaran dhalina ma ahan. waan aamusay ma weydiinay isaga waayo inuu xaafadda qabsanaya ogaheeda hadalkii weydiiyo sidii baan ku aamusay. aniga ayaga codsaday marka inaan ilmaha soo tuso oo arko maadaama una arkay isaga oo u dhashay. waan baxay marka tigid buu noo soo jaray bila ah waan baxay halku joogay baanaado. maalin ayaa intaan haddana xagga joognay ayaa taleefankeyga systemka xaggaas waxbaa iga wareeray. gabadha asxaabna marka igu tiraahdo wala xagga kaasoo taleefankiisa aan qorantay kaasiga la soo halkaasaan haystaa. gabadhii ayaa xasho isagoo ku maqan jaamacadda wacday markuu yimaado guriga ugu dhahay gabadha kusoo wacday waxoo isagana iska seexday u daalanaa. gabadhii aniga wacanaya taleefanka meel la fadhiya ayaa gabadhi aad soo wacday faybarka ma qabanin waayo waxaan isdhahay qofka waxba ka qabanin masii shakiyin asxaab iska noqon karaan qaraabo noqon karaan qofku wuxuu yahay guri uma haynin. markaan wala dhowr jeer ka qabanay message soo dirtay leedahay maxaa kugu dhacay ayaantan laguma hayo waa lagu waayay waa una ayaamana naga joogniba. maxaa kugu dhacay leedahay wala qofka taleefanka lahaa ma joogan ku idhi wardaa anaa kugu sheegaya saaq soo wacdoona adigu maxaa tahay dhahday waxaan ku dhaanay xaaskiisanahay xaas maxay soo qortay waxaan ku dhaw wax dhibad aniga qabtaa ma ay dhahdo walaalo raali noqo khalada ii fahmin si wanaagsan baad marka dambe ila hadashay ayaan ku dhaw walaalo marka ma salaam. message-yada marka gabadha isku la hadal ku qorto xidhan waan iska dhaliiday markaas aan sidii qof si wanaagsan ku la hadlay waxbaas qalad qaadanay. waxay samaysay marka inay dhinaca Facebook soo wareegto Facebookna taleefankan aan hayayo open ka ahaa ka furaa. dhinaca ka soo wareegtay message soo qortay taariikh naad soo naagtan waa furay dhahdo ma aha maxay tahay taleefanka qabanayso. waan furay message-kii waxaan ku dhaw la dhana haysta kan hadii lagu shaqaysan jiray waan furay lama furin wala qabaa hadun baan been lagu sheegay ma ii jawaabin marka. anigana waan caayay markii waan aflagaday bas waan xanaaqay. message-deedii ayaa waxaan bilaabay inaan gadaal u raaco walaal waxaan waayay hal message kula hadlo aydan baa message soo qorta maxkamada iiga tagay. isaga jaamacad buu aaday. jaamacadda markii intuu ku maqnaa ayay message taleefanka gabadhan saxaabnahay oo xagga uga tagay ayaan soo wacay anoo la hadlaya ayaa la iga soo wacay ma qabanin.
message ayaa qofkii soo diray uu leeyahay maxaa kugu dhacay marka aan ku dhawl ma joogo wiilka taleefanka iska lahaa gabadha bay ahayd gabadhii marka message-yadeena dib u aqriyay waxaan arkay walaalo markaa sheekada naga dhexaysa hadal badan oo wiilada jiro isugu dhici jiray inuu qofkan soo diyaarin jirayba waan yaabay darxaan dhahay wixii buu dhex taagantahay maxaa ka hadli kartaa haddar shibaan iska dhahay qofkiina sidii halkii ku baxay kadib ma qaano waxaa dhacday marka walaalahay أنا markii waxaan u saday uur qaaday labada bil markii ii dhamaatay ayaan soo baxay halkii aan ka imaaday ayaan kusoo laabtay markaan halkii kusoo laabtay waxaan bilaabay inaan shaqo raadiyo aan guri raadsado maadaama markii hore faamiliga la deganaa habarada iyo hooyadii Afrika ku nooshahay shaqaan raadsaday guriga baan buuxsaday inta sugay maalmo kamid aadna aan tabcaan u ahaa xanuunsanay ay soo waxay inuu iga codsaday inaan kala tagno waan la yaabay waxaan weydiiyey markaa maana dhib kuugu keenay oo dhib baa iga tirsanay sida ayaa sheekadan keentay mise aduu dhib ku haystaa may adigana dhib uguma sameeyana dhib ma haysto bas inaan kala tagno kaliya rabaa waan yaabay marka waxaan dhahay haddaan dhib kuugu sameyn adigana dhib ku haysanin filimka aan fahmay maaha filimkan dee kolley waxaad soo go'aansatay gabcaaga ku jira ayaan dhahay waxaan kaa celin kara malahan go-aankayaana maahan walaal mana kala tegin laakiinse wuu aamusay markaas uu laba bilan lahaa dib u isoo wicin muddo 5 bilood ah anoo 7 bilood uur ah leh ayuu maalin aad ii wacay message badan ii soo diray gabdhahan saxaabnaha la socday maana la hadlin dad baa la socdaa baan ku leeyahay ma kula hadli maxaa dhacday marka inuu week sidii ugu wacayay week kadib baan ka qabtay maxaa rabtaa baan ku walaalo wuxuu ku dhahay walaalay qalbka shilka galan ka soo noqday qof fiican baad ahayd raali noqo iska caafi ilmahan abihiisa nahay ilmahooda korsano waan soo noqday anaga martan ku xumaynay ayaan dhahay maqaldama kule way lahay laakiin si qalad weyn baad iga gashay haddana dhibkii keenay aad ii sheegin laakiin haddana saas ay chance baan ku siinaya hada chance ka faa'iidaysato walaalay muddo aad sanad ku dhawaad ah oo ilaa inta ka dhalay ilmaha dhowr bil gaadhay qof wanaagsan qalbi wanaagsan yani xumaan intaas kuma arkin si fiican u xidhiidhinayay wuxuu awoodan siinay ma sha Allah waha maalmo kamid ah ayuu markaa waan baxaya magaalada joogo ka tagaya waxaan aadayaa walaashii oo dhalaysay hooyadii baan ka xaynaya oo u geynaya uu baxay